Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu isleegaynaa taariikhda magaalo madaxdii dowladdii Umayyadeed ee Dimashq. Dimashq waa caasimadda dalka Suuriya, waana caasimaddii ugu horreysay ee adduunkan laga taago. Waxayna caan ku noqotay cilmiga, aqoonta, siyaasadda, fanka iyo suugaanta Carbeed. Waxay noqotay caasimaddii dowladdii Islaamiga ee Umayyadeed sanadku markuu ahaa 661. Waxaana la og yahay in 2000 ka hor dhalashadii Nabi Ciise, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, uu hogaamiyihii Aramiga ahaa ee Rayzuun oo ka aasaasay boqortooyadii magaalada Dimashq uuna ka dhigtay caasimad. Waxay gaadhaysaa tirada dadka ku nool magaalada Dimashq 6.2 milyan oo dad ah. Tirakoobkan waxaa la sameeyey sanadku markuu ahaa 2004. Marka la eego qaab dhismeedka magaalada, qayb ka mid ah magaalada waxay ku taallaa buurta dheer ee loo yaqaano Qaaziyuun, waana qaybta ugu weyn Dimashq, taasoo ay ka mid tahay magaaladii hore. Waxaa dhinaca koonfurta ka mara webiga Baraada, halka xaafadaha cusubna ay ku yaalaan dhinaca waqooyiga galbeed ee magaalada. Magaalada Dimashq waa wadnaha degmada Dimashq, taasoo ay ku hareeraysan yihiin beeraha ugu dhoobada wanaagsan iyo buurta Qaaziyuun. Haddaba haddii aan isla yara eegno caasimadda aqoonta Carabta oo ah Dimashq, waxay Dimashq la soo kulantay xadaaradihii ugu muhiimsanaa, waxaana ku noolaa Dimashq culimmadii ugu caansanaa cilmiga iyo suugaanta sida gabayga iyo fikirka, aqoonta, falagga iyo caafimaadka, daawooyinka iyo weliba boqorradii iyo hogaamiyaashii iyo suldaanadii ugu caansanaa ee soo mara dowladihii Bariga Dhexe. Waxaa ku yaalay Dimashq iskuulo laga barto taariikhda. Qof walba oo cilmi rabo inuu bartona wuxuu soo aadi jiray magaalada Dimashq. Waxay magaalada Dimashq ahayd waqti dheer caasimadda aqoonta. Waxaa lagu qabtaa dhaqdhaqaaqyo aqooneed, waxaana ku yaala xarumo badan oo aqooneed iyo kuwo caalami ahba, sida xarunta aqoonta ee Faransiiska iyo xarunta aqoonta ee Isbaanishka iyo xarunta aqoonta ee Ruushka iyo xarunta aqoonta ee Jarmalka. Waxaa kaloo ku yaala tiyataro iyo madxafyo badan sida madxafka qoraalka farta Carabiga. Waxaana sanadkii 2008 loo doortay Dimashq caasimadda aqoonta ee Carabta. Maantana halka xaalkeedu marayo waad aragtaan. Haddaba magaca iyo goortii la dhisay. Waxaa la dhisay magaalada Dimashq 9000 oo sano ka hor miilaadiga, sida ay caddaynayaan godad iyo goobo taariikhi ah oo u dhow meesha la yidhaahdo Taal al-Ramaad. Waxayna sheegaan dadka waxbaadhaa inay tahay magaaladii iyo caasimaddii ugu horreysay ee adduunka. Waxayna caasimad ahayd waqtiyo badan oo kala duwan. Dhinaca magaca magaalada waxaa jira aragtiyo badan oo taariikhi ah, kuwaas oo la isku khilaafsan yahay. Waxaana jira oraahyo badan. Waxaana ugu dhow aragtida odhanaysa Dimashq waxay la macno tahay dhulkii ubaxa. Waxaana lagu magacaabay Shaam oo laga wado Zaam, wiilkii Nebi Nuux. Magacyada magaalada Dimashq magacyo kala duwan baa loo kala yaqaanaa, waana fara badan yihiin. Haddii aynu mid ama laba ka soo qaadano, waxaa ka mid ah Dimashq, Daatu al-Cimaad, Jabruun, Araam iyo kuwo kaloo badan. Haddaba furashadii Islaamka ka hor waxay noqotay Dimashq markii ay furteen muslimiintu qarnigii 7 magaalada ugu muhiimsan ee Islaamka iyo iftiinka cilmiga iyo suugaanta. Waxayna noqotay xilligii dowladdii Umayyadeed magaalo madaxda dowladda, taasoo ahayd magaaladii ugu weyneyd. Waxaa laga dhisay magaalada qasriyo badan oo ay lahaayeen boqorradii. Waxaana dhismayaasha magaalada ugu muhiimsan ama ugu caansan masaajidka Umawi, kaasoo ay dhiseen dowladdii Umayyadeed. Waxaana la dhisay waqtigii Waliid Cabdi al-Maalik uu xukunka hayay, wuxuuna ka mid noqday dhismayaasha ugu quruxda badan. Haddii aanu isla eegno qarniyadii dhexe, qaybtii dambe ee qarnigii 8 ayaa waxay dowladdii Cabbaasiyiintu caasimad ka dhigatay magaalada Baqdaad, kadib markii ay ka adkaatay dowladdii Umayyadeed oo caasimad ay u ahayd magaalada Dimashq. Markii uu daciifay xooggii dowladdii Cabbaasiyiinta ayaa waxay magaalada Dimashq ka mid noqotay dowladdii Faadumiyiinta ee Masar looga talin jiray. Waxaa marar badan weeraro ku soo qaaday dowladdii Qaraamiyada, iyagoo marar badanna gumaystay, taasoo u keentay magaalada burbur iyo dhibaatooyin badan. Haddaba Faadumiyiintii kadib waxaa la wareegay magaalada dowladdii Saljuuqiya. Dowladda Saljuuqiyaduna waxay ahayd dowladdii
markii dambena dhashay dowladdii Cusmaaniyiinta. haddaba ninkii la odhan jiray Miciinu al-Diin wuxuu la dagaalamay ciidamadii Salabiyiinta ee Faransiiska ahaa, wuxuuna ka hortegay xisaarkii ay ku hayeen ciidamadoodu magaalada Diyaara ee u dhow Dimashq, wuxuuna difaacay magaalada iyo xadaaradeedaba. markaas kadib waxaa yimid Nuuraddiin Maxamed Zanki, wuxuuna caasimad ka dhigtay magaalada Dimashq, waxayna sidaas ku noqotay Dimashq caasimadii Ayuubiyiinta. haddaba waqtigaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa madxafka cilmiga caafimaadka. waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee waqtigan Nuuraddiin Zanki la qabtay musqulaha ama xamaamka lagu qubaysta ee Nuuraddiin al-Ayuubi ee ku yaala Suuriya. waana xamaamkii ama musqulihii ugu horeeyay magaalada Dimashq, ilaa iyo haddan waa la adeegsadaa. sidoo kale waxyaabaha caanka ay ku tahay magaalada Dimashq waxaa ka mid ah qalcadeeda 4 albaab leh. waxay kaloo Dimashq ahayd magaalo ay inta badan degaan boqorradii degay ee ay xarunta u ahayd waa ay fara badan yihiin. waxaa ka mid ahaa Nuuraddiin al-Zanki marka loo eego dhinaca Masar, iyo Saalixuddiin al-Ayuubi iyo boqorkii Daahir Bibris. intuba waxa ay degeen magaaladan Dimashq. casrigii Mamalik waxay ahayd Dimashq gobolka ugu weyn uguna muhiimsan sandanadii mamluukiyiintaasoo ahaa kuwii Masar ama mamaaligta la odhan jiray, waxaana loo bixiyey gobolka Shaam. waxay xuduudeedu gaadhaysay dhinaca bariga iyo waqooyiga Furaad, dhinaca galbeedkana badda dhexe, dhinaca koonfurtana Gaza iyo Ciraaq. waqtigii suldaankii Daahir Bibris iyo suldaan Qaaloon ayay magaaladu si fiican u dhisantay, waxaana laga dhisay masaajido iyo iskuulo badan. waxayna dhammaatay dowladdaas markii ay soo galeen ciidamadii Timurland, markaasoo ay burburiyeen magaalada ama ay burburiyeen magaalooyinkii Islaamka oo ay ka mid tahay magaalada Dimashq. markii laga adkaaday mamaaligtii sanadkii 1516 waxay Suuriya ka mid noqotay dowladdii Cusmaaniyiinta, markaasoo Dimashq ay noqotay magaalada labaad ee ugu weyn uguna muhiimsan dowladdii Cusmaaniyiinta, markaasoo Istanbul ay ahayd magaalada koowaad iyo caasimadda dowladda Cusmaaniyiinta. waxay hogaamiyaashii Cusmaaniyiin siiyeen magaalada Dimashq ahmiyad aad u weyn, waxayna u bixiyeen Shaam Shariif. waxay caan ku ahayd magaalada Dimashq dhinaca ganacsiga iyo cilmiga iyo wax soo saarka, iyadoo sidoo kale ahayd meel ay ku sii nastaan dadka u socda xajka. waxayna ku dadaaleen madaxdii ka talinaysay sugidda amniga magaalada, iyadoo sidoo kale ku dadaalay dib u hagaajintii masaajidada. sidoo kale waxay xooga saareen suuqyadii qadiimka ahaa, waxaana laga dhisay magaalada qarnigii 18aad guryo loo yaqaano guryihii Dimashq, waxaana ugu caansanaa guriga Khaalid al-Acdam iyo guriga Axmed Zubaaci. waxayna dalxiisayaashii magaalada soo booqday ay aad ula yaabeen guryahaas aadka u quruxda badan. waqtigii gumaysigii Faransiiska ee Dimashq, haddaba intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka 1914 ilaa 1918 ayaa waxay labadii dowlad ee isla jiray ee ahaa Turkiga iyo Jarmalka ay Dimashq ka dhigteen saldhigga ugu muhiimsan ciidankooda. sanadku haddaba markuu ahaa 1918 ayaa ciidankii kacdoonkii Carabta ay xoreeyeen magaalada Dimashq iyagoo gacan ka helaya dowladda Ingiriiska, waxayna ku dhawaaqday bishii Maars ee sanadkii 1920 in ay tahay caasimadda dowladda Carabta ee madaxa bannaan oo uu maamulkeeda qabtay boqor Faysalkii koowaad. laakiin waxay bishii Julaay ee isla sanadkaas ku dhacday gacanta Faransiiska. haddaba marar badan ayay muwaadiniin Suuriyiin ay ka saareen Faransiiska magaalada intii uu socday kacdoonkii Suuriya ee weynaa, taasoo ka bilaabantay buurta loo yaqaano buurta Carabta ee ku taalla koonfurta Suuriya. Faransiisku waxay ku duqeeyeen magaalada diyaarado, waxayna u geysteen magaalada dhibaatooyin badan. haddaba guuldaradii Faransiiska sanadkii 1940 ee dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxaa magaalada la wareegay dowladdii Fiishiga ahayd ee Jarmalka hoos imanaysay. laakiin ciidamadii Faransiiska ahaa iyo ciidamadii Ingiriiska ayaa waxay qabsadeen sanadku markuu ahaa 1941, waxayna Suuriya Faransiiska ka xorowday sanadku markuu ahaa 1946, waxayna noqotay dowlad gaar ah oo ah dowladda Suuriya.
taariikhdeenii maanta halkaasaynu ku soo koobaynaa ku saabsanayd magaalada dimashq iyo xadaaradaheedii. wasalaamu calaykum. waxaana qoray oo aan ka soo xigtay qoraalkan xasan cabdisalaan guuleed.